السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga qaaliga meel kasto adduunka aad ka joogtaan waa walaashiin mulki xasan maxamed oo idin leh caafimaad iyo barwaaqo ku noolaada. inta xanuunsan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha caafiyo, inta caafimaad qabtan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u siyaadiyo. maanta waxaan idin wadaa qiso aad u qurux badan oo ila soo wadaagtay gabar asxaabta ka tirsan. qisadana waxay u dhacaysaa sida tan. qisadana waxay ka hadlaysaa cafiska iyo qiimaha uu leeyahay cafiska iyo manzilada uu ku gaarsiin karo hadaad noqoto qof cafis badan. gabadhan waxay leedahay waxaan ahaan jiray gabar aad loo dulmiyo, mar walbana la dhibaateeyo, xag jirdil ahaan iyo xag hadal ahaan, mar walbana hadaladeeda laga sheekeeya, wax walbo xumaan ahna ayada dusha laga saaro. gabadhan waxay leedahay mar walba waxay ka sheekeysan jireen dadka aniga ehelka ii ah ama ii dhow dhibaatadeeda iyo inaan ahay qof xun. markay xitaa sheeko la haysto haddii aan kelmad ku soo darsado waxaa la dhihi jiray iska aamus, adiga waxaa tahay ama waxaa og tahay ma jiraane. kadib waxay dhahday gabadhii waxaan noqday qof asaga dhan uqdadeysan oo mar walbaba asaga isla hadla, xag walbana ka dhibaateysan, murugteeda cid ii daboosho ama cid iga su-aasho waxaan ku murugsanahayna inaysan jirin. kadib waxay leedahay gabadhan kadib anoo sidii u dhibaateysan qof walbana waxaa ugu sheekeyn jiray hadallada laygu sameeya iyo dhibaatada i haysata. qof walbana wuxuu igala qayb qaadan jiray murugteeda. kadibna wuxuu i dhihi jiray iska samir, adduunyadan samir ayay wax ku leedahay. kadib waxaan ahaa gabar gurjoog ah oo waxba baranin, yacni aanan guursanin. maalin maalmaha ka mid ah waxaa ii imaatay gabar asxaabteeda ka tirsan. waxay igu dhahday inakeen muxaadara ayaan u socdaa. aniga muxaadaradaas ka hor ma ahayn qof wax barata oo guriga ayaan iska dhex joogi jiray. kadib gabadhii ayaan raacay, waxaana tagnay muxaadaradii. muxaadaradana waxay ku saabsaneed aakhiro iyo waxa jira, janno iyo naarba. kadib muxaadaradii markii aan soo dhageystay qalbigayga aad ayuu u gariiray, waxaana noqday qof khushuucsan. kadib waxaan go'aan ku gaaray inaan iska cafiyo dadkii i dhibaateeyeen oo dhibaatadan aadka u weyn igu sameeyeen nafsadeyda, igana dhigeen dad qof aan wax qabsan karin. kadib markii aan go'aan ku gaaray arrintii way ii suurta gashay, dadkiina waan cafiyey. sidii ayaan dadkii iskaga saamaxay. hadda waxaan dhigtaa dugsi, waxaana ahay ardayad barata qur-aanka kariimka ah. hadda ma gaarin suuradaha aadka u dheerdheer, mana ihi qof qur-aanka hore usoo dhammaysay oo waxaan ahay qof hadda hore ujeed ah. waxaana rajaynayaa inaan noqdo, aan ku rajaweynahay maclimad insha allah. gabadhaas oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay leedahay dadkii aniga maalinkaas i dhibaateyn jiray, mar walbana hadallo xun igu dhihi jiray, igana aaminsanaa inaan ahay gabar aad u xun oo waxba aan qabsan karin, ana maxaa la dhahay fadhigeeda ka kici karin, horumarna aan gaari karin. dadkii maanta salaan ayay ii wada taagayaan, wax mar walbana waxay jecel yihiin inay waqti ila qaataan. magaceygana wuxuu noqday magac sare. marka halka meesha dadka igala hadli jirin hadeertaana waxay jecel yihiin inay waqti igu bixiyaan, ilana fariistaan, talooyinna ay iga qaataan. ka warabal ilaahay subxaanahu wa tacaala qafuur raxiim waaye. cafiska wax ka muhiimsan ma jiraan. walaalahayga qaaliga ah, inaad cafisid qof ku dhibaateeyey waa arin adag, haddana waa arin adiga ku horseedi kara horumarkaaga, kana fikiri kara, yacni haddii aad samaysid waxaa suurtagal kuu noqon kara inaad horumar ku gaartid. dadkii aad cafisay ayaa ku jeclaanaya. shiiqaan arkay oo ka sheekeynaya wuxuu dhahay waxaan ahaan jiray qof adag oo shiiqii ayaa wuxuu dhahay aniga waxaan ahay qof adag, iska celintana way igu badan tahay, mana cafin kari qofkaas ee see yeelaa. shiiqiisii ayaa wuxuu ku dhahay waxaad samaysaa qofkaas habeenkii markii uu hurdo oo saqdi dhaxa ee tahay, markii aad salaatuleylka usoo kacdid ilaahay subxaanahu wa tacaala u bari oo ilaahay dambi dhaaf u weydii qofkaas. kadib waxaa arkaysaa qofkii ku jecel oo soo dhaweynayo oo gacan wanaagsan kuu taagayo, adaaba iska cafinaya. qof mar walba inuu ku salaamo walaalay see tahay, ma fiican tahay, haye xaaladaad kaban ku dhahay, adigaaba cafinaya. sheekhi ayaa
sidii ayaanba qof cafis badan ku noqday ayuu dhahay sheekii. Marka waxaa loo baahan yahay qofka dhibaato walba uu ku geysta inaad iska cafisid. Cafi oo saamax. Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo qafuur raxiim ah intaasoo dambi intaan ka galno cafiya asagoona abuurtay oo koonkaana keenay oo awoodiisa aan dhulka ku saaranahay wuu awoodaa inuu dhulka nala jaro markaan dambiyada ka galeeno. wax walba asagoo awoodo ayuu haddana markaan dhahna ilaahu nacafi uu nacafiyaa annagoo qof bini aadan ah oo nafsadeena ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisa ay ku jirtana inaan qof cafin wayno midaasi waa mid aan fiicnaanin. cafi walaalka si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku cafiyo mar walbana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku cafinayaa. iska cafi walaalka. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajeynayaa inuu qalbiyadeena ka dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbiyadeena kuwa nadiif ah ka dhigo, kuwa dadka iska cafiyin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo, kuwa dadka ilaahay dartiis isku cafiyana ha naga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay qalbiyadeena nadiif ha noogu dhigo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.